dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo al-shabaab ayaa wuxuu haatan ka soconaya deegaanka Masjid Ali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe halka oo fadhiisan weyn al-shabaab deegaankaasi oo muhiim u ah al-shabaab ahaana xarunta labaad ugu weyn ee gobolka Shabeellaha Dhexe ku leeyihiin ayaa waxa maanta weerar dhowr jiha ku qaaday ciidamada dawladda Soomaaliya oo maalmahan dhaqdhaqaaqyo xooggan ka wada gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana weerarka kadib xigay dagaal dhex maray al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dawladda Soomaaliya waxaana wararka ka imaanaya deegaanka Masjid Ali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe sheegayaan in wali rasaas xooggan laga maqlayo deegaanka Masjid Ali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe halka oo isku adeegsanayeen ciidamada dawladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab waxaana wararka ugu dambeeyay ka imaanaya deegaanka sheegayaan in dagaalka xooggiisa uu haatan ka soconayo duleedka deegaanka Masjid Ali Guduud halkaas oo isku urursadeen al-shabaab ka ku sugnaa deegaankaasi kadib markii ay ka war heleen in ciidamada dawladda ay ku sii jeedaan deegaankaasi waxaana haatan la sheegaya in al-shabaab ay ka dhex dagaalamayaan guduud waaweyn oo ka qoteen duleedka deegaanka halkaas oo ciidamada dawladda ay ku garaacayaan hubka nuuciisa kala duwan waxaana sidoo kale wararku sheegayaan in dagaalka tooska ay barbar socdaan duqeymo dhinaca cirka ay geysanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn isla markaana qayb ka ah dagaalada ka soo gobolada dalka Soomaaliya waxaana haatan wili wararku ay sheegayaan in dagaal xooggan oo u dhaxeeya al-shabaab iyo ciidamada dawladda oo ka soo duleedka waxaana sidoo kale wararka qaar ay sheegayaan in guud ahaan deegaanka gacan ku intiisa la wareegeen ciidamada dawladda Soomaaliya kuwaas oo sawirro soo dhigay baraha bulshada isla markaana ay sheegeen in kala wareegeen waxaana sawirro ay muujinayaan in inta badan deegaanka ay gacanta ku hayeen ciidamada dawladda Soomaaliya dagaalka ka dhacay deegaanka Masjid Ali Guduud gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wuxuu imaanayaa xilli maalmahan ciidamada dawladda Soomaaliya horkacayaan xildhibaano iyo sidoo kale saraakiil ciidan ay howlgallo kala duwan ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana ay kala wareegeen deegaan dhowr oo ka tirsan gobolkaas oo kala dhaca dhanka webiga ee muhiim u ah al-shabaab isaga kala goosha gobolada Jubbooyinka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale Hiiraan waxaana sidoo kale ciidamada dawladda ay la wareegeen deegaan dhaca bariga degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana ah xarunta maamulka Hirshabeelle halkaas oo al-shabaab la sheegay inay ka soo qaadi jireen weerarada ay ku qaadaan magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana dagaalka maanta ciidamadu kala wareegeen deegaanka Masjid Ali Guduud oo qayb ka yahay dagaalada ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa xoreynta deegaanka ka wadan gobolada dalka Soomaaliya waxaana gobolka Hiiraan maalmaha dagaal ka soo imika ku soo biray gobolka Shabeellaha Dhexe oo maalmo ugu dambeeyay dagaalo aan kala joogsaneyn ku dhex mareen ciidamada dawladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab